Maalmihii ugu dambeeyay, Cristiano Ronaldo ayaa mar kale noqday hadalhaynta ugu weyn inkastoo uusan garoonka ku jirin. Warar badan ayaa soo baxaya kuwaasoo sheegaya inuu ku qanacsaneen maamulka Al Nassr. Qaar ka mid ah wararkaasi xitaa waxay tilmaamayaan khilaaf ka dhex jiro isaga iyo kooxda. Hase yeeshee, xiddiga reer Portugal ayaa beeniyay warkaasi. Ronaldo ayaa baraha bulshada soo dhigay sawir uu ku jiro tababar isaga oo wata laba qalbi, kuwaas oo ah midabada Al Nassr. Wararka ayaa cirka ku shareeray markii Cristiano laga reebay liiska ciyaartoyda. Halkaasi ayay ka bilaabatay sheekada sheegaysa inuu ka niyad jabsan yahay kooxda. Xiddiga reer Portugal ayaa la filaynin inuu soo afjaro shaqo joojinta lama filaanka ahayd ee uu la galay Al Nassr, isla markaana dib ugu soo laabto garoomada markii ay kooxdiisa Jimcaha wajahayso Al Ittihad, kulan aad muhiim ugu ah tartanka horyaalka Saudi Pro League. Ronaldo oo ah 5 jeer ku guuleystay Ballon d'Or ayaa sheegay kulanka derbiga ee Al Riyadh kadib markii la sheegay inuu ka carooday qaabka lacagta loogu qaybiyo kooxaha Sacuudiga. Al Nassr ayaa haddana 1-0 ku badisay kulankaasi. Goolka waxaa dhaliyay Sadio Mane, balse kooxda ayaa doorbidi lahayd inay Ronaldo haystaan. Ronaldo oo 41 sano jirsaday ayaa hadda dib ugu soo laabtay tababarka. Mas'uuliyiinta Sacuudi ayaa filaya inuu soo afjaro shaqo joojinta isla markaana uu u ciyaaro kulanka Al Ittihad. Xiddiga reer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa mar kale noqday xarunta wararka ciyaaraha kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya inuu ka tagi rabo Al Nassr dhamaadka xilli ciyaareedka. Warbixinta uu qoray Goal ayaa sheegaya in Ronaldo uu ka careysan yahay qaabka maalgelinta ay u maamusho sanduuqa maalgashiga dadweynaha Sacuudiga PIF, isagoo rumaysan inuu kooxaha kale sida Al Hilal iyo Al Ittihad ay helaan taageero ka badan Al Nassr. Goal ayaa sii bandhigay 7 doorasho oo Ronaldo u wareegi karo, kuwaas oo ay ka mid yihiin Manchester, Real Madrid, Inter Miami iyo koox kale oo Yurub. Cristiano Ronaldo ma u ciyaari doonaa kulanka beri ee la leeyihiin Al Ittihad? Arrintani ayaa maalmahan qabsatay wararka kubadda cagta Sacuudiga iyo guud ahaan dunida. Ronaldo wuxuu ka cabanayaa maalgelin la'aan ka jirto Al Nassr. Xiddiga reer Portugal ayaa laga reebay kooxda Al Nassr kulanka Isniintii ay la ciyaareen Al Riyadh. Warbaahinta Portugal ee Polo ayaa sheegtay in Ronaldo uu diiday inuu ciyaaro kadib markii uu ka carooday sida naadiga iyo maalgelintiisa ay u maamulaan suuqa maalgashiga dadweynaha Sacuudiga PIF. Ronaldo wuxuu Al Nassr ku soo biiray 2022 isagoo noqday ciyaaryahanka ugu mushaarka badan, wuxuuna sanadkii qaataa 177 milyan sanadkii, wuxuuna June 2025 saxiixday qandaraas cusub 2 sano ah. Cristiano uma arko tartame. Lionel Messi oo ka hadlay xifaaltanka uu la lahaa halyeyga reer Portugal, mid ka mid ah ciyaartoyda ugu waaweyn kubadda cagta adduunka. Dooda aan dhamaadka lahayn ee taageerayaasha ka qabaan cidda ah ciyaaryahanka ugu fiican. Wareysi uu dhowaan bixiyay Lionel Messi ayaa muujinaya is-hosaysiin dhif ah, isagoo diiday inuu isbarbar dhigo ama uu soo arko tartame uu leeyahay halyeyga reer Portugal Cristiano. Anigu Cristiano iyo ciyaaryahan kale uma arko tartame. Dhammaanteen waxaan nahay asxaab, maxaa yeelay waxaan wadaagnaa hal ujeedo, ayuu yiri Messi. Mar wax laga weydiiyay kaalintiisa taariikhda kubadda cagta, Messi wuxuu sheegay inuusan jeclayn is-ammaan ama inuu naftiisa qiimeeyo. Anigu ma aha qofka go'aaminaya inaan ahay kan ugu fiican iyo in kale. Taasi waxaa go'aanka iska leh dadweynaha.